الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحلقديني صدحات ee kamid ahayd xalqadihii wacdiga Ramadaanta ee aynu soo wadnay cibaad Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu adoomaha u sharciyeeyay cibaadooyin fara badan oo kala duwan oo kala noocyo ah si qofku marba mid uu uga faa'iideysto oo mid hadii uu ka daalo ta kale uu la yimaad mid markaa naftiisu ay firfircoon tahay qofku uu la yimaado uu wax weeyaan uga faa'iideysto cibaadaadka noocaasina waxay u qaybsamaan kuwa faral ah iyo kuwa sunn ah labadaba cibaadooyinka waqtiyada lagaga faa'iideysanayo gaar ahaanna Ramadaanta guud ahaanna waqtiga oo dhan waxa kamid ah qiyaamul leylka ama waxa la yiraahdo salaatul leysh oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku amaanay dadka la yimaad Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون waxa ay ka fogaadeen dhinacyadoodu jiifkii iyo meelihii ay ku seexanayeen iyo gogoshii iyo furaashidii bay ka dheeraadeen iyagoo rabbigood baryaaya jecelna markaa waxa Ilaahay agtiisa ah oo damcaaya kana cabsanaya ciqaabkiisa ayaa ay la imanayaan waxa kale oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri isagoo dadka muuminiinta ah sifaynaya kaanuu qaliilan min al-layli ma yahjacuun wa bil ashaari hum yastaghfiruun waxay ahaayeen kuwa habeenkii yaroo kamid ah seexda xilli suxuureedkana Ilaahay bay dambi dhaaf weydiisan jireen macnuhuna waxa uu yahay habeenka intiisa badan waxay ahaayeen kuwa cibaadeysta oo u taagan qiyaamul leyl iyo cibaadooyinka kale ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado salaadaas markaa qiyaamul leylka oo waqtigeedu uu yahay salaada cishaa marka laga baxo ilaa iyo salaada subax fadliyada ay leedahay ee uu rasuulku u sheegayna aad bay u fara badan yihiin salaadaha sunnaha ah ugu fadliga badan inay tahay buu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam afdalu salaati ba'da al-fariidati salaatul leyl buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaad waxa ugu fadli badan tafaralka dabadeed salaatul leyl weeyaan waxaana kamid ahayd waxyaabihii rasuulku sallallahu alayhi wasallam bilowgii markuu magaalada Madiina uu tagay dadka uu ku dhiiri gelinayay bay kamid ahayd oo hadalada rasuulka waxa kamid ahaa ayuha naas afshu salaama wa at'imu ta'ama wasilu al-arhama wasallu bil-layli wan-nasu niyamun tadkhulu al-jannata bisalaamin wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam dadow salaanta faafiya oo dhexdiina isa salaama cuntada bixiyo oo dadka qoodiyo oo cid u baahan siiya qaraabada xiriiriya habeenkiina tukada dadku iyagoo ay hurdaan jannada ayaad ku galeysaan nabadgeliye ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo kale inoo soo diray ee inaynu ku dayano ahaa isaguna salaadaasi aad buu ugu dadaali jiray oo kamuu tagi jirin waliba waa dheereyn jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo salaatul leyl dheer buu tukan jiray waxa ay tilmaamaysaa Aisha radhiyallahu anha waxay leedahay rasuulka Ilaahay qiyaamul leyl buu kici jiray hatta tatafattara qadamah ila ay lugihiisu dildilaacaan taagnida uu taagan yahay ee dheer awgeed faqultu lahu lima tasna'u hada waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar markaas waxaan ku nabi Muhammadow maxaa sidan u yeelaysaa oo aad naftaada u kadeedaysaa iyadoo oo dambigaagii hore kaagii dambe la dhaafay rasuulku wuxuu igu yiri bay tiri Aisha afala akunu abdan shakura miyaanan noqonayn adoon mahadnaq badan maadaama Ilaahay uu dambigaygii hore kaagii dambe uu dhaafay nicmadana Ilaahay uu isiiyay macnaha waxa weeyaan waxaan ugu mahadnaqayaa cibaadada aan la imanayo halkaasna waxa laga qaadanayaa waxa uu yahay qofku nicmo Ilaahay marka uu siiyo mahadnaqa Ilaahay uu mahadnaqayaa inaanu ahayn oo kaliya taa inuu afka uga mahadnaqo oo alxamdulillah ama ashukru lillah oo yira ee mahadnaqa ugu weyn inuu yahay
in qofku waxa weeyaan uu camal ahaan iyo ficil ahaan ilaahay uu ugu mahadnaqo oo nicmada ilaahay uu siiyey inuu ku caabudo oo hadduu ilaahay caafimaad siiyey caafimaadkii uu ku caabudo xubnihii ilaahay uu siiyey ilaahay aanu ku caasina ilaahay uu ku caabudo mahadnaqa waxa ugu horeeya ugu weyni waa kaas weeyaan markaa afalaa akuunu cabdan shakuura buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam salaadaasi fadliyo fara badan oo kalena rasuulku waa u sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam in shaydaanku qofka uu ka mashquuliyo isla markaana qofka ka seexda uu yahay qof shaydaan markaa waxa weeyaan uu dhibaateeyey rasuulka agtiisa ayaa maalin waxaa lagu sheegay nin intuu seexday waagii uu baryey siduu u hurday markaasaa wuxuu uhi daaka rajulun baala shaydaanu fii udunayhi aw qaala fii udunihi kaasi waa nin markaa shaydaan uu dhagaha kaga kaajay buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofku marka uu seexdo shaydaanka ayaa qadaadka kaga xidha buu yihi 3 guntimood waa adkeeyaa mid walbana wuxuu ku afuufaa ama uu yidhaahdaa qofkii ku odhanayaa habeen dheer baad haysataaye iska hurd calayka leylun tawiilun farqud rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi qofkii haddii uu tooso oo ilaahay uu xuso 3 guntimood mid baa furmaysa haddii uu weysaystana guntintii labaad baa furmaysa haddii uu tukadana guntintii saddexaad baa furmaysa fa asbaxa nashiitan tayiba nafsi wuxuu waa bariisanayaa isagoo firfircoon naftiisuna ay wanaagsan tahay haddii aanu sidaa yeelinna waxa weeyaan wuxuu waa bariisanayaa isagoo oo waxa weeyaan khabiitha nafsi kaslaan ah isagoo markaa naftiisu ay xun tahay oo caajis ah ayuu waa bariisanayaa buu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sidoo kale salaadaas waxay ahaayeen dadkii wanwanaagsanaaye ku dayda la ina yidhay ee horreeyey ee salafkii kuwa dheereeya ayay ahaayeen salaadaas oo qur-aan fara badan ku tukada oo waxay tilmaamayaan markaa salafkii inay ahaayeen kuwa ku tukada 100 aayadood ilaa ay qaarkood yidhaahdeen dherarka awgii waxaanu cuskan jirnay markaa ulo ama tiirar ayaanu cuskan jirnay bay yidhaahdeen rasuulkana sida aan tilmaamnay waa dheerayn jiray waqtiyada qaarkood saxaabada qaarkood ku daba tukaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan waxay yidhaahdeen arrin xun baanu ku haminay oo maxaad ku hamiday inaan ka goosto rasuulka waa adkaysan waayey saxaabada ka mid ihi habeen buu rasuulka salaatuleyl ku daba tukaday dabadeetana wuxuu yidhi rasuulku wuxuu bilaabay suuratulbaqara markaasaan is idhi wuxuu ku tukanayaa 100 aayadood 100 aayadood markuu akhriyo ayuu rukuucayaa waa waday ilaa uu suuradiiba dhameeyey haddana wuxuu bilaabay suuratu nisaa uu dhameeyey haddana wuxuu bilaabay oo uu soo noqday suuratu aali cimraan dabadeedna wuu dhameeyey markaasuu rukuucay hal ragcad buu ku tukaday markaa 5 jis iyo 2 maqro aad buu u dheereeyey rasuulku sal allahu calayhi wasalam salaadaas markaa waa salaada innaka inagu culus imika ee haddii qofku waxa weeyaan quraan yar oo waxa weeyaan jis ama jis barkiiba lagu tukado dadku ay daalayaan ay dheeraysanayaan ee waxa weeyaan ay la dheeraanayso salaadaasi gaar ahaan waxay fadli dheeraada sii leedahay bisha ramadaan oo waxa weeyaan in la istaago oo la tukado rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka istaaga ramadaanta ee u istaaga salaatuleyl qiyaamuleyl u istaaga isagoo oo iimaan lahoo rumaysan salaadan iyo waajibnimadeeda iyo wuxuu ka helaayo ilaahina kaga ajar dalbaaya dembigiisii hore ayaa la dhaafaa waa salaada markaa la yidhaahdo markaa salaada taraawiixda waxay ka mid tahay uun qiyaamuleylka qofka mu'minka ahna waxa uu munaasib ah ee u wanaagsani waxa weeye inuu tukado oo weliba imaamka uu la tukado isla markaana aanu ka hadhin ilaa imaamku waxa weeyaan uu ka salaamo naqsanaayo salaadaasi waxaa la tukan karaa oo qofku tukan karaa hadba intuu ka tukan karo waxa weeyaan hadduu ragcad baa ugu yar 3 ragcadood buu tukan karaa 5 ragcadood buu tukan karaa 7 buu tukanayaa 9 buu tukan karaa 11 buu tukan karaa waa ka badan karaa salaadaasi oo fadliga iyo wanaaga iyo dheeraadkaas ayay leedahay qofkuna waxa weeyaan inuu kaga daydo nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam yadkii wanaagsanaa ayaa muhiim ah dadkii salafkii wanaagsanaana waxay ahaayeen kuwa u arka qofka salaatuleysha aan tukan ama qiyaamuleylka aan wax ka tukan qof xun bay u arki jireen waxa la soo wariyay imaamu axmed in uu nin marti u noqdo uu soo martiyey dabadeedna wuu marti geliyey meel buu seexiyey cuntuu siiyey dabadeedna waa seexday weysuu u soo biyeeyey markaasoo uu u soo dhigay halkii uu hurday
habeenkii baa la seexday salaadii subax markii ay gaadhay buu haddana u yimid si uu weysadii ugu soo biyeeyo mar labaad wuxuu arkay biyihii uu ugu shubay xalay oo weysadii ku jira deedna imaamu axmed ninkii uu canaantay wuxuu ku yiri biyaha weysadan waxaan kuugu shubay inaad ku tukato oo ku weysato salaatuleysh mabaadka cilmi miyaa markaa uu ku yiri markaa salaadaasi markaa walaalayaal waxa weeyaan waxa muhiim ah in laga faa'iideysto waqtiga yar ee laga yaabo dadka in badan oo ka mid ihi in iyagoo meelaha ka sheekaynaya salaadii taraawiixda ahayd laga soo baxo in badan oo ka mid ahna inuu meelaha fadhiyay oo sheekaynayay laga yaabo inuu dambi ku hadlayay waqti yaroo kooban maalmo yaroo kooban oo ah markaa maalmaha Ramadaanta qofku inuu ka faa'iideeyo sidoo kale dumarkiina inay soo xaadiraan jamci waxa weeyaan waa mid u bannaan haddii waxa weeyaan laga aamin yahay fitno iyaga lagu fitnoodo ama iyagoo ay wax fitneeyaan waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu la tamnacu ima allahi masaajid allah adoomaha ilaahay ee dumarka ah u diidina masaajida ilaahay ayuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam laakiin shardiga ku xiran waxa uu yahay in aanay waxa weeyaan inay soo asturaan inaanay waxa weeyaan asturaad aanay ka iman cadar inaanay isku soo shubin iyagoo asturan oo waxa weeyaan ay ka muuqato marka alla ka cabsi inay yimaadaan ayaa korkooda oo ku waajib ah xalqadeenaas marka intaas aan ku soo koobaynaa wallahu subhanahu wa ta'ala